ciidamada booliiska oo howlgal ka sameeyay qaybo kamid ah magaalada Dhuusamareeb iyo deegaano hoostaga ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen laba gaari oo qaaday sida kuwa oo meelo kala duwan ka keenay iyadoona lagu xiray saldhigga booliiska magaalada Dhuusamareeb ugu dambeyn lagu gubay bartamaha saldhigga booliiska ganacsatadana looga digay in qaadka ay soo galiyaan deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb taliyaha booliiska magaalada Dhuusamareeb Dhamme Burhaan Axmed Rooble ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaadkan laga soo qabtay duleedka magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale howlgalka ciidamadu ay ku soo qabteen waxa uu sheegay in ay dhaqan gelinayaan amarkii lagu joojiyay guud ahaanba qaadka in uu soo galo deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb iyadoo laga hortagayo faafitaanka cudurka saameynta xoogan ku yeeshay dunida ee coronavirus-ka saaka waxay ciidamada booliiska dawladda federaalka Soomaaliya qaybta Galmudug ay ka shaqeeyeen deegaan walba si guud si gaar ah deegaanka caasimadda la xiriira iyo caasimadda gudaheeda inay soo qabanayaan qaadkii la mamnuucay ee loo asteeyay maanta laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu afarta in la joojiyay cidii lagu arkana lagu qaba doono asagana la tusi doono in la gubo oo wixii dawladda ay mamnuucday ama ay Galmudug mamnuucday madaxdeeda ugu sareysa aysan dhici doonin wixii la sheegay in haddana laga jiifto waxaan rabnaa maanta inaan marka cadeyno shaqada aan kor taaganahay oo aan ugu yeerna meediyaha oo ah inaan gubayna qaadkii ay mamnuucday dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Galmudug oo ugu horeeya madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo dawladda federaalka mas'uuliyiinteeda kala duwan haday yihiin amni iyo maamul inay dhaqan gashay caasimadda Galmudug Dhuusamareeb dhinaca kale taliya Burhaan ayaa waxa uu sheegay in ay dhaqan galeen amaradii lagu joojiyay qaadka waxa uuna uga digay mar labaad ganacsatada in ay soo galiyaan qaadka deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb si lamid ah tan maanta lagu sameeyana loo gubi doono qaadka la soo qabto insha Allah taala waa si wadi doonaa inta ay muuqato ama ay sameynayaan dad kamid ah bulshada reer Galmudug inay keenaan qaadka deegaanka annagana waxaan sii wadi doonaa inaan ayagana ku ciqaabno tusnana inaan wixii nalo igmaday ama nala faray oo ahayd in la joojiyo inaan fulin hadii alla yiraahdo digniin waxaan rabaa inaan ka digo ummadda reer Galmudug gaar ahaan reer caasimadda hanti hadaad iska galidaan qaad waad u jeedin meeshaas u dambeeyay waa lagu gubayaa hantidiina ka daaya qaadka waxa badan meelo kale oo aad ku macnaydaan ama ku maareysataan ilaahay ka baqa hantidiina ilaashada hadaad diidaan sidaan iyo si lamida suug hadii alla yiraahdo deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ayaa laga mamnuucay in qaadka laga isticmaalo sidoo kalena laga ganacsado iyadoona qaad kan lamida lagu gubay maanta degmada Gurceel ee isla gobolka Galgaduud hay'adaha amniguna ay u xil saareen ciidamada booliiska ah in gacanta lagu soo dhigo cid waliba oo lagu arko iyadoo qaad soo galinaysa deegaanadan Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb.